kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin bay khiyaarta hawada nagala xidhiidha waa mar kale iyo xubinteenni faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan maanta ku faaqidi doonaa qodobo xiisa badan oo ay ka mid yihiin dowladda federaalk ee soomaaliya oo hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ciidamadii ugu badan ka daabulay magaalada muqdisho isagoo kala geeyay koonfur galbeed galmudug iyo weliba deegaanada kooxaha al-shabaab ay kaga sugan yihiin taasi oo la doonayo in lagu qaado hal mar dagaal xoogan oo ka dhana kooxda al-shabaab xilli madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu ku sugan yahay jiidda hore ee dagaalka waxa uuna dhiirigelin iyo u sameynaya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya. daawadayaal waxaa kaloon barnaamijkeena aan ku faaqidi doonaa mid ka mid ah dowladaha afrikaanka madaxweyne ku-xigeenkoodii oo xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu helay arrimo waaweyn. qodobo xiisa badan oo kale ayaa daawadayaal barnaamijkeena aan ku qaadaa dhigi doonaa waxaana barnaamijka alaabay la falanqeeya saaxiibkay gooni. faragodo waa mahadsan tahay. haddaan ka hormarno dagaalada ka jira soomaaliya weli way socdaan waxaana madaxweynaha soomaaliya jiidda hore ku sugan isagoo weliba tega meesha xabadda ay ciidamadu ka ridayaan ee deegaanada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe ayuu tegey. marka difaac aad u weyn ayuu ku arkay ciidamada ay ku jiraan wuuna u hambaliyey. wuxuu laakiin madaxweynaha hadda dalbay ciidamada ugu badnaa ee laga keenayo magaalada muqdisho. saakan waxaa laga daabulay magaalada muqdisho, waxaana lagu daabulay hirshabeelle, waxaa kaloo lagu daabulay galmudug iyo koonfur galbeed. madaxweynaha waxaa ka go-an in dagaalka si toosa loo galo maadaama uu asaguba oo safka hore dagaalka uu ku jiro uu taagan yahay meesha shabaab lagala dagaalamayo. waa madaxweynihii ugu horreeyay ee soomaaliyeed ee meel risaas looga ridayay shabaab hortago. marka dadka soomaaliyed waxay ku tilmaameen madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu yahay nin geesi ah una adeegay in shabaab la dagaalamo. dagaalka marka hadda waa markii ugu dambeysay. dowladdan waxay sheegtay in waxay ugu bishaareyn doonto shacabka soomaaliyeed inay tahay aadan yabaal in gacanta lagu dhigo maalmaha soo socdo. weliba ciidamada intooda badan waa la qariyey, waxaana loo qariyay in howlgalka uu si degdega ku bilowdo maadaama shacabku ay ku wareereen. waxaa lasii maraya meesha hiiraan, waxaa lasii maraya masaajid cali guduud, waxaa lasii maraya webxo, haddana waa laga soo laabtay. maxaa qaayib baa dagaal ka dhacay, qaayib baa la dhaafi layahay. waxyaabahaas shacabka soomaaliya lagu wareeriyey. laakiin hadda ciidamo oo maalmihii lasoo dhaafay lagu diyaarinaya magaalada muqdisho ayaa saaka la daabulay. saddexda maamul goboleedna ciidamada ugu badnaa ee magaalada muqdisho laga qaaday oo xeryaha ku jiray ayaa la geeyey. dowlad deegaanka nimanka la yihahdo galmudug waxay ku andacoonayaan inaysan saanad military iyo taageero aysan ka helin dowladda, laakiin saaka ilaa 800 oo askari oo hubeysana loo diray iyo hubkooda saanadooda dhammaystiray. marka wax oo hadda maanta ay kadib ay taagnaan doonaan ama ay marun ay ka gelin doonaan ma jiraan. dagaalka waa u diyaar garoobeen, wax ka harayna ma laha. dhankan hirshabeelle sidoo kale ciidamada ugu badnaa ayagana saaka laga dejiyey oo beledweyne iyo meelo kale ka degay. kuwo kale ayagana dhulka ka baxay oo hadda masaajid caligood kusii socdo. marka madaxweynaha waxaa umaleysaa in urarka al-shabaab in la tirtiro ay ka go-an tahay, dagaalkana ay aad macnaha ugu dadaalayo maadaama asaguo furanta hore kusugan yahay faragod. gooniyo waxaa la isweydiinayaa dagaalkan waa run dowladda federaalk ee soomaaliya waa ay ka go-an tahay. dhanka kale waxaa la isweydiinayaa oo asagana hadlay ninka lagu magacaabo cali jeyte cusmaan oo sheegay in ay jiraan waa dowlad goboleedyo fashilinaya dagaalka lagula jiro kooxa al-shabaab. marka dowlad goboleedyadaasi ma magac dhabay? cali jeyte cusmaan wuxuu ku sugan yahay deegaanka tardo ee gobolka hiiraan, wuxuuna sheegay inuu kasoo bilaabo dagaalka iyo halganka deegaanka lagu magacaabo matabaan ee gobolka hiiraan meesha ugu xageysa ee dhanka galmudug ah. wuxuu sheegay in intaas uu ku jiray halgan ururka al-shabaab ah, laakiin ilaahay wuxuu ka baryey inta qof shabaaba nool yahay inuusan dilin. wuxuu yidhi ma dhimanayo intii qof shabaaba nool yahay, ilaahay ayaana taas ka rajeynaya. yidhi wuxuu yidhi waan shabaab waan ka cirib tiraynaa, laakiin wuxuu yidhi maamul goboleedyada nagu fiirsada dagaalka ayagana markooda ayaan ku fiirsan doonaa. dagaalku ma aha inuu hiiraan iyo inta udhexeysa meelahan oo mar walba ka soconayo, laakiin dagaalka hiiraan hadda waan soo afjarnay, waxa noo harayn waa wax yar. haddaan ka cirib tirnana wuxuu yidhi dadka nala taageeray oo macnaha hiilka iyo hoodana la hor istaagay, wuxuu dhahay waa la garab istaagi doonaa, waana siin doonaa maxaa la dhahay sheeg dadaalkeena hiiliho waan siin doonaa. isagoo aad u ammaanay dadka soomaaliyeed ee macnaha isaga gurmadka u fidiyey. dowladda federaalk soomaaliyana aad ayuu u ammaanay maadaama ballanqaad ay macnaha badan ee u sameysay, wax badanna ay dowladda ka caawisay in shabaab laga saaro gobolka hiiraan. wuxuu ballan qaaday inuu si tooso dagaalka u geli doono, laakiin uusan hadhow caawin doonin qofkii aan maanta caawin. wuxuu kaloo sheegay in maalmaha soo socda oo al-shabaab ka cirib tiro doono deegaano kaloo fara badan ay ku sugan yihiin. waxaana ka rajeynaa dha ilaahay amarkiisa maahine, waxaan ilaahay ka rajeynaa inta hal qof shabaab soomaaliya ku nool yahay inuusan aniga idilin. marka ninkaas waa nin dagaalka ka go-an tahay, waa nin u diyaar garoobay maadaama oo hadda 2 isbuuc magaalada muqdisho ku nastay. hadda mar labaad ayuu deegaanka ku laabtay. waxaana leeyahay cali jeyte haddoo mar ku laabtay hiiraan dagaalka dib ayuu u bilaabanaa. ninkaas waa nin aan ka nixin nacaybka al-shabaab ayaana ku gogo'day sida la sheegayo, oo ma aha nin naxariis u sameeya al-shabaab. dadkuna waxay isweydiinayaan cali jeyte oo 5 xaba ama 6 xaba haddii la heli lahaa mar hore ayaa soomaaliya gacanta lagu dhigi lahaa. laakiin hadda
wuxuu dhahay waxaan mar walba uun u taaganahay inaan dagaalka galno saakana saanad military iyo ciidan ayaa la gaalsiiyey gobolka hiiraan aad iyo aad ayay ugu faraxsan yahay Cali Jeete arrintaasi marka dadka waxay hadda soo hadal qaadanayaan lees u noqotay anigoo oo isheeg macalaha shabaab ka xoreyna Soomaaliya ilaahu ha idil gooniyow waxaa jira dagaal xoogan oo kooxda al-shabaab dhan walba haatan lagaga qaaday shabeellada dhexe ayuu ka socdaa hiiraan inta badan waa laga sifeeyey waxba kagama harsana galmudug sidoo kale ayadana waa waxa weeyaan waa kuwan waxaa laga ilaa 900 oo ciidamo iyo kuwii hore iyaga sii haysteen marka ma las dhihi karaa bishan gudaheeda ama bisha soo socota waa laga afjari karaa shabeellada dhexe ama iskaba dhaba hirshabeelle iyo weliba gobolkan maxaan ku dhahay galmudug ee hadda qorqor uu madaxweynaha ka yahay faragodo aad iyo aad hadda ciidamada hadda meesha la geeyey ciidamo oo soo laabanayna ma ahayn ciidamo hub la-aan iyo rasaas la-aan haysana ma aha teeda kale ciidamada la yiraahdo macuusleyda ayaa madaxweynaha wixii hub ka jajabay oo rasaasta kaga dhacday ama ka halaabay dhan ayaa loo dayactiraa magaalada muqdisho loo soo qaaday waxaa kaloo la siiminaya zaanad cusub ayaa la siiyey oo lagu qalabeynayo ciidamada macuusleyda ciidamada dowladda federaalk soomaaliyana waa u diyaar garoobeen hadda dagaalkan meel looga laabto ma jiro waxaana dagaalka ugu cusla ayaa dhici doona isbuucan hadda soo socda sida wararka ay sheegayaan oo ka bilaabanayo maanta aan joogno wixii 7 beri gudaheed in aadan yabaalna la qabto meelo kaloo fara badanna la qabto dowladuna ay ka dhaqaaqdo wixii hore oo dagaal la samayn jirin dagaal uusan ahayn dagaal hadda iyo koo yahay ay u eg tahay madaxweynaha Soomaaliya maadaama uu jiida hore dagaalka asagu uu ku sugan yahay inaysan jirin meel oo isaga laabto dad fara badan oo dhaliilaya madaxweyne Xashin Maxamed Dhahaye maxaa ku dhacay laakiin waxaa la leeyahay madaxweynuhu wuxuu diyaarinayay hubkii iyo saanadii iyo ciidankii dhaqaalihii ay ku dhaqaaqi lahayd dowladda maadaama dagaalka uu maalmo dhexdaas oo gaabis ku yimiday eedeymo fara badan dowladdu ay loo soo jeediyey laakiin hadda wax badan ayaa iska bedeli doono waxaa kaloo iyaduna wararka ay sheegayaan in hadda Xamse Cabdi Barre xukuumaddiisa maadaama ay sheeg xaaladeeda ay daciif tahay waxqabadkeedana ay yaraatay saaki waxay sheegaan leeyahay in dowladda federaalka Soomaaliya xukuumadeeda waxyaabaha ay qabato inay kamid tahay xulka qaranka ee 17 jirada Soomaaliya inay ku guuleysteen maxalli koobka Sakafa loo yaqaano oo ay ka soo qaadeen Ethiopia ay ku garaaceen finalka nimanka la yiraahdo Sudan taas ay waxay ka dhigteen raqiil shaqo badan ay xukuumadda qabato inay kamid tahay marka wax ay maanta sheegtaan maadaama ay la yihiin xukuumaddiisa inuu isku shaandhayn ku sameyn doono wasiiro badan xilalka laga qaadi doono taas ay u badan tahay marka xukuumadda dadaalkeeda maadaama ay yaraatay eedana loo soo jeediyey dagaalka meelaha ka socdana ay aad uga gaabisay oo madaxweynihii hawshaas uu la wareegay xukuumadda isku shaandhayn ayaa lagu sameyn doonaa maalmaha soo socdo marka hadda waxaan rajeynaynaa waa dagaalkaas inuu madaxweynaha ku guuleysto xukuumaddan wasiirada la sheegaya la isku bedelo bal aan aragna guushii markaas kasoo baxday fargud gooniyow waxaa jira in ciidamo laga dejiyey koonfur galbeed Soomaaliya dhanka kale waxaa la sheegaya oo dowladdu laftigeeda ay ogtahay in kooxda al-shabaab ay usoo boqoleen koonfur galbeed iyo Jubbaland oo aad iyo aad xagga ay ugu soo qulquleen xaasaskii iyo ciyaalkii iyo dadka oo dilba ay xagga u soo rarteen marka koonfur galbeed iyo Jubbaland iyaga maxaa haysto oo dagaalka la qadilayeen walahi horta maamul goboleedyada dagaalka inay si toos u galaan kama go'no dadka Soomaaliyeedna way ogyihiin koonfur galbeed iyo nimanka la yiraahdo Jubbaland iyo aan qorqor asagana halkaas Hirshabelle xataa ma ogola dagaalka in lagu guuleysto laakiin dowladda ayaa maqooninayso dowladda hadda waxay ku mashquulsan tahay in Hirshabelle iyo Galmudug laga soo saaro ururka al-shabaab maadaama ay halkaas ku mashquulsan culayska ay saareen saaka koonfur galbeed waxaa loo diray ciidamo ugu badnaa oo diyaarada lagu qaaday marka waxaa la dhahay waa in dagaalka gashaan hadda dagaalka galaynin maamul goboleedka dagaal aana gelin cadeyntiisa ayaa laga rabaa sababta uu geli waaye micnuhu ka leeyahayna lama waa laga rabaa marka maamul goboleedyada waxaa malaysaa mar walba inay dagaalka xagal daacinayaan maadaama aysan rabin deegaanada ayaga ay joogaan oo xildhibaanada iyo wasiirada ku haystaan inay sii balaartaan oo hadhow markay shabaab laga xoreeyo ay hadhow markay balaartaan mucaarad iyo abaabul iyo waxyaabo kale ku bilaaban karo marka waxyaabaha ka fikirayaan waxaa kamid ah in deegaanka ay haystaan hadda marka la fiiriyo Axmedow kale Kismaayo uu haystaa awood saar iyo Dobley marka labadaas meel ay maamuli karaa ciidamadii ku dul haystaa wax ay sameyn karaan dhaqaaq ma laha galmudug hadda aado Axmed Cabdi Kaari qorqor dhoos maraabi cadaad meel loo dhaafi kara ma laha wuxuu rabaa markii inuu meesha ku haysto oo qofkii markii dhaqaaq sameeyaba hujum ciidan la dul saaro oo awood loo adeegsado marka ma rabaan maamul goboleedyada in banaanka loo baxo oo micnaha deegaanada xildhibaanada ee laga soo doortay ay kala galaan oo hadhow mucaarad iyo micnaha bedelid iyo campaign lagu sameeyo ma rabaan marka waxyaabaha inta badan dagaalka ugu carareen waxaa leeyahay waa in hadhow aan mucaarad aysan yeelanino halka meelo koombada camal u xiran in la iskugu aruuriyo oo dadka xoog lagu haysto marka taas ayaa ka dhigan tahay waa arki doonaa wixii Xashin Maxamed go'aankiisa kasoo baxo maadaama awood ciidan iyo oo military oo weyn oo isticmaalayo taageero fara badan oo ka helaya dowladaha Mareykanka iyo Turkiga waa arki doonaa dagaalkaas meesha ka baxo fargado gooniyo wad mahadsan tahay qodobka ugu dambeeya daawadayaal aan ku soo qaadan doono waxa weeyaan mid ka mid ah dowladaha Afrikaanka madaxweyne ku-xigeenkoodii oo xabsiga loo taxaabay
haddaba arrintaasi waxaan ka wareysanay saaxiibkay gooni madaxweynahaasi iyo sababta loo xidhay. madaxweynahaas wuxuu u dhashay wadanka Mali, waana madaxweyne ku-xigeenka dalka Mali, waxaana lagu magacaabaa Julius Jilima, wuxuuna isheeg lagu haystaa corruption musuqmaasuq xagga dhaqaalaha ah. maxkamadda sare ee macnaha Mali ayaa baaritaan ku heysay, baaritaankan uu soo gabagaboobay, saakana xabsiga ayaa loo dhadhiciyey maadaama oo baaritaanka soo dhamaaday. marka Jilima waa nin macnaha caan ka ah, madaxweynaha ku-xigeenka ah wadankaasi Mali, muddo fara badan ayaana lagu daba jiray. marka wadamada Africa waxaa leeyahay waa wadamo fiicanba hadiiba ay qofkii corruption sameeyo asoo madaxweynaha xataa xabsiga la dhigayo. marka arrinta ugu dambeysay oo warka saaka naga soo gaaray dalkaasi Mali, halkaas ayuu ku dambeeyey, ninkaasna xabsiga ayaa la dhigay. wixii maxkamadda go-aan ka gaarta ayaana lagu qaadi doonaa maalmaha soo socda. aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa gooni oo barnaamijkeena faaqidaada ee maalin walba aad ka dhagaysataan warbaahinta nala wadaagaya daawadayaal. inta ayaan barnaamijkeena kusoo gabagabaynayna. intaa dib dambe ugu kulmi doono mid lamida waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.